Somaliland hooyada dimuqraadiyadda casrigan ee bariga fog ee geeska Afrika waa sax inaan sidaas niraahno waayo halkan 20kii sano ee ugu dambeeyay waxa ka dhacay 6 doorasho oo qof iyo coda kuwaas oo lagu soo doortay 4 madaxweyne golayaal baarlamaan iyo kuwa deegaanka ah ka bilow Ethiopia Eritrea Djibouti ilaa Soomaaliya inteeda kale ma jirto meel sidan 4 hogaamiye shacabku ugu codeeyay taas ayaana xiise u yeelaysa horusocodka dimuqraadiyadeed ee nidaamka halkan Somaliland ka jira 20 sano ee dimuqraadiyadda ahi waxay qayb ka yihiin 30 sano oo nidaamkani maanta jirsaday waa sanooyin Somaliland wax badan oo guulo ah kasbatay kuwaasi oo dimuqraadiyaddu ugu horeyso dhismaha kaabayaasha dhaqaaluhu ku xigo ammaanka la fahantiisuna qayb ka yahay waayo halkani Somaliland waa meesha ugu ammaanka fiican guud ahaan dhulka Soomaalidu degto docda dimuqraadiyadda ka soo bilow Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ilaa iyo Muuse Biixi Cabdi oo haatan talada haya dhammaantood doorasho qof iyo coda oo muwaadiniin badan ka qayb galeen ayay kursiga ku tageen waa arrin qariib ah marka laga hadlo bariga fog ee geeska aynu ka soo hadalnay madaxweyne Biixi oo ugu dambeeyay waxa uu doorashadiisii dhaweed ku guuleystay 55% codadka guud ee la dhiibtay isla isagu inta uu talada hayana waxa uu hirgelinayaa doorashooyinka susidkan ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka waxa loo dareeri doonaa 31 bishan taas oo ay ka qayb galayaan 1000 musharax ayna codaynta ka qayb qaadan doonaan 1 milyan iyo 200 oo qof tani waa tusaale kale oo muujinaya saanqaadka geediga dimuqraadiyadda Somaliland dhinaca mashaariicda Somaliland horumar la taaban karo ayay ka gaartay muddada 30 sano ah ee ay jirtay haba u badnaadeen sanadihii dhawaaye waxa halkaas ka hirgalay mashaariic wax weyn u taraya nolosha rayidka Somaliland aynu ka bilowno Berbera Corridor waajid halbowle dhaqaale noqonaya ka oo isku xiraya Somaliland iyo Ethiopia sida la qorsheeyay jidkani waxa uu noqon doonaa marin dhaqaale oo muhiim ah ka oo Ethiopia u sahlaya inay wax kala soo degto dekada Berbera taa oo Somaliland dhaqaale badan ka macaashi doonto jidkan oo ay dhisayso shirkadda laga leeyahay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ee DP World waxa dhismihiisa ku baxaya 1 bilyan oo dollar sida aanu shirkadda ka soo xiganay waxa mashruuca la dhameystiri doonaa 10 sano ee soo socda kaasoo sidoo kale Somaliland ganacsigeeda ku xiri doona galbeedka iyo meelo kale oo Afrika sida dalalka Senegal, Masar, Mozambique, Rwanda, Algeria iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sidaas waxa lagu qoray Chantuska DP World mashruucan ayaa la rajaynayaa inuu noqdo xudun dhaqaale ka oo isku xira Somaliland iyo Afrikada inteeda kale oo Ethiopia badlaanta ahi ugu horeyso isla shirkaddan DP World waxay gacanta ku haysaa mashruuca ballaarinta casriyeynta iyo dhismaha dekada Berbera ka oo dhaqaalaha ku baxaya dhan yahay 436 milyan oo dollar dhismaha dekadaasi haatan waa gabagabo wajigiisi koowaad waana guul kale oo nidaamkani kasbaday muddada 30 sano ah ee uu haatan jirsaday haddaynu eegno mashaariicda 5 sano ee haatan ka socda Somaliland waxa bilowgii 2017 halka laga daafuray mashaariic horumarineed oo afmeerkoodu ku eegyahay sanadkan 2021 kuwa oo dhaqaalaha ku baxaya intiisa badan Somaliland ay ka caawinayaan kaalmayaasha caalamiga ah gaar ahaan UK, Denmark iyo Netherlands 2.1 bilyan oo dollar ayaa ku baxaya mashaariicdaasi Somaliland waxa ay bixinaysaa 80 milyan oo dollar halka inta kale ay bixinayaan 3 dawladood lacagtan ayaa lagu bixiyay mashaariic qayb ahaan la hirgeliyay qaar kalena wali socdaan oo ugu horeeyo dayactirka wadada isku xirta Burco iyo Berbera mashruuca dhismaha marsada yar ee deegaanka Mayd mashruuca saddexaad ayaa ah biyo-gelinta magaalada caasimadda u ah Somaliland ee Hargeysa halka mashruuca afraad ee qaar kamid ah lacagtan ku baxaysaana yahay ilaalinta carrada iyo beeraha deegaanada Somaliland dhinaca horumarinta adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka nidaamkani intii uu jiray waxa uu ka sameeyay horumar la taaban karo jaamacadaha Hargeysa iyo Booramana waxa ay safka hore uga jiraan kuwa ardayda Soomaalidu tacliinta u doonato halka adeegyada caafimaadkana ay jiraan goobo ku yaala gudaha Somaliland
oo looga safro deegaano badan oo ka mid ah gudaha Soomaaliyada kale. dhinaca ammaanka Somaliland sidaan hore u sheegnay waxay safka hore uga jirtaa meelaha ugu ammaanka badan dhulka Soomaalidu degto. si weyn ayaa loo sugay ammaanka gudaha waxaana midaasi looga mahad celinayaa sirdoonka iyo booliiska nidaamkaasi oo arrintan shaqo weyn ka qabtay. kaalmada caalamiga ah ay ka faa'iideysatay Somaliland waxaa kale oo ka mid ah dhismaha xoogaga amniga. dowladda Ingiriiska ayaa ka taageertay bilowgiiba. halkaasi waxaa ka jira ciidamo isugu jira military, booliis iyo sirdoon. kuwaasi waxa ay suurto geliyeen in nidaamkani mutaysto ammaanta sugnaanta ammaankiisa. 1996 ayay ahayd markii ugu horeysay ee laga soo takhalusay nidaamka caaglaysiga kaas oo maanta ka dhex aagan ciidanka Somaliland. inkastoo Somaliland lagu dhaliilo dhinaca madax bannaanida warbaahinta iyo xuquuqda hadalka, haddana Somaliland waxay horey u noqotay hooyada dimuqraadiyadda bariga fog ee geeska Afrika. haatanna waxay u jihaysan kartaa noqoshada hooyga ganacsiga geeska marka laga eego mashaariicda wado iyo dekad bale ee halkaasi ka socda, kuwa oo ku xiri kara Afrikada kale ee baahida u qabta ku xiranka marinka